aynu ku bilownay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa mar kale difaacay tallaabadii ay dowladda Mareykanku ku bartilmaameedsatay kuna khaarajisay taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iran Qasem Soleimani. Mike Pompeo oo goordhaweyto shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in uu rajaynayo in Iran aanay dili doonin dad Mareykan ah, isagoo ku hanjabay in madaxweyne Trump uu si adag uga jawaabi doono arrintaasi. warbixintan waxaa inoo soo koobaya Harun Macruuf oo stuudiyaha nalagu weheliya. mahadsanid Sahra Ciidle. xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa sii kordhaysa kadib dilkii habeennimadii Jimcaha ee taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iran Qasem Soleimani, kadib markii qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka iyo kuwa xisbiyada ee dalkan Mareykanka ay ku tilmaameen dilka Soleimani inuu ahaa mid aan waxba ka tarin nabadda gobolka. Ayaa xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu sheegay in Mareykanku uu ku qanacsan yahay go'aanka uu qaatay. The right decision. We got it right. The Department of Defense did excellent work. And the president had a entirely legal appropriate. waxa uu yiri go'aankaasi waxa uu ahaa mid sax ah, waana asiibnay shaqo fiican ay qabteen hay'adihii dowladda. madaxweynuhuna waxa uu qaatay ayuu yiri go'aan waafaqsan sharciga iyo istiraatiijiyadeena iyo sidii looga hortagi lahaa dhaqdhaqaaqa guracan ee dalka Iran. wasiirka arrimaha dibadda Iran Javad Zarif ayaa maanta goor hore sheegay in Qasem Soleimani uu socday dalka Iraq hawlo diblomaasiyadeed awgeed. qodobkaasi ayaa la weydiiyey Mike Pompeo waxaana uu sheegay inaysan waxba ka jirin. We know that wasn't true. We not only know the history, we know in that moment that was not true. Zarif is a propagandist of the First Order. And most of what you suggest. waxa uu yiri waan ognahay inaysan taasi run ahayn, mana aha oo kaliya inaynaan la soconin taariikhdiisa. waxaan sidoo kale aan ognahay ayuu yiri in xilligaasi aysan taasi dhab ahayn. Zarif waa nin ku xeel dheer dacaayadda, waa dacaayad Iran ay ka dambaysay ayuu yiri, mana aha wax cusub. beentaasi oo kale horey waan u maqalay ayuu yiri Mike Pompeo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadallo uu siiyey warbaahinta dalkan Mareykanka waxa uu muujiyey in la bartilmaameedsan karo goobaha taariikhiga ee dalka Iran, taasi oo haddii ay dhacdo xadgudub ku ah sharciyada caalamiga ah. Mike Pompeo waxa uu sheegay inaysan bartilmaameedsan doonin goobaha taariikhiga ah. waxa uu yiri meel kasta oo la eego in la bartilmaameedsado, dadaal kasta oo la sameeyo waxa la fulin doonaa iyadoo sharciga la raacayo iyo weliba shuruudaha caalamiga. waxaan arkay buu yidhi mashruucan, waana ka shaqeeyey, kalsooni ayaana ku qabaa inay taasi dhici doonto. Mike Pompeo waxa uu sheegay in Iran ay cashar ku qaadato jawaabta uu Mareykanku ka bixiyey dilkii muwaadin u dhashay Mareykanka oo dhowaan lagu dilay dalka Iraq, waxaana uu uga digay Iran inay bartilmaameedsato muwaadin Mareykan ah. mahadsanid Harun Macruuf oo noo soo koobayay shir jaraa'id oo uu goordhaweyto magaalada Washington ku qabtay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo. halkaad nagala socotaana